كبالعادي يورنرجو عوي دكته كل شركو كديت بعالمكي هرشبيلة maantu taluu ideekin dhulkoo hirshabeella niman dabshaba dheerahay dhabtii jawhariyoo ilaa mahatay dhisan aadan yabal dholka ceel bacad dhamays warkaadhii raadhi ceeliyo maasha Allah timaadeen munaasabada muhiimka ay ku saabsan hirshabeelle magacaygu waa Cabdiqaadir Cali sida ay taqaaniin inta badan ka saaya munaasabadan maanta oo ku xuseen hirshabeelle oo caawa ay tahay taariikhda 9 Oktoobar 2025 marka hore kusoo dhawaada xafladan aad loo soo abaabulay oo aad u badan kulligii marka ugu horeyso waxaan idiin sheegayaa hordhaca barnaamijka sida caadada ah maadaama aan nahay ummad islaama waxaan ku bilaabi doonaa aayadaha qur-aanka kariimka kadibna dad badan oo mas-uuliyiin oo rag iyo dumar isugu jira hakayaal iyo maarkina ayaa hadli doona xafladan caawa insha Allah marka haddii ilaa yiraahdo waxaan hadda ku bilaabayaa oo aan u yeerayaa Cabde Cabdullaahi Maxamed oo noo aqrin doona qur-aanka kariimka falyatafadal Cabde Cabdullaahi haddaad maqlayso halkan imaw insha Allah qur-aanka noo قاعد تدبر على تقعد سنين هاي نهار كيرسان ما دام قرآن كله فرضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هذه يوم سنتها يا عبد الله محمد قفك وهر أمير دون محواي عاوة قدوميها هرشبيل مقالة برمجة حسن عبد الرزاق حسن بوليس كسو دواو هذيك يا مفروض يا حفلة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حنجعلان لها مركا ورئيسو دينعا قبضها إنا كعود صدو إن بوق الله يريو سيان يسوم قلنو آد أيان إذن كما هدعلنا يا وقتي نقالقا oo aad caawa soo hurteen idinkoo u dabaaldegaya xafladda sanad guurada 9aad ee maamul goboleedka Hirshabeelle. waxaan idin leeyahay soo dhawaada dhammaantiin. waxaan halkan ka salaamayaa oo aan rabaa hambalyadan in aan gaarsiiyo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. waxaan sidoo kale salaan sidaas la mid ah aan rabaa inaan gaarsiiyo iyo hambalyadanba madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. sidoo kale waxaan rabaa inaan gaarsiiyo hambalyadan gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle mudane Cabdixakiin Luqmaan Xaaji
sidoo kale waxaan rabaa in aan hambalyadan gaarsiiyo maamul goboleedyada kale ee caawa halkan ka soo qayb galay oo ay ugu horeeyaan maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo xaqiiqdii xafladan soo ajiibay wakiiladooda sidoo kale waxaan rabaa hambalyadan inaan gaarsiiyo waxaan jeclaan lahaa marka aan maamul goboleedkan sheego macal shacabka iyo qaylada iyo taageerada inay intaa ka badnaata ayaan jeclaan lahaa waa maamul goboleedka waqooyi bari Soomaaliya sidoo kale waxaa nala jooga oo maaragtay fadhiya maamul goboleedka koonfur galbeed sidoo kale waxaa jooga maamul goboleedka waxaa fadhiya maamul goboleedyo kale oo tiro badan ayaa fadhiya oo Soomaaliya oo dhan ka mid ah sida galmudug oo kale waxaa fadhiya sidoo kale qayb ka mid ah maaragtay Jubbaland intaas oo dhan waxaan idin leeyahay hambalyo sidoo kale dhammaan jaaliyadaha kala duwan ee magaalada Birmingham waxaan aad idinkaga mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkiina waqtigiina qaaliga ah soo dhawaada nala caweeya oo nagula damaashaada xafladda maamul goboleedka Hirshabeelle aad iyo aad u mahadsantihiin aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay gudoomiye xasan boolis haddana waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofonka colonel maxamed abshir oo matalaya maamulka Puntland kusoo dhawo colonel بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم صوماليا 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 هيرشابيله هيرشابيله idinku noolaada habeen wanaagsan waxa weeye waxaan leeyahay hambaliyo 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 waxaan u hambalyeeynaa dhammaanteen meel kastoo aynu joogno dowladda goboleedka Hirshabeelle waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha waxaan u hambalyeeynaa ku-xigeenkiisa waxaan u hambalyeeynaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa waxaan u hambalyeeynaa golaha wasiirada waxaan u hambalyeeynaa dadweynaha Hirshabeelle meel kastoo ay joogaan ilaahay waxaan ugu baryaynaa inay noolaadaan caafimaad iyo barwaaqo ku noolaadaan waxaan leenahay hambaliyo 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 waxaan leeyahay madaxweynaha Hirshabeelle hawl badan buu soo qabtay wax badan buu shaqeeyay hawlo badan buu galay waxaan leenahay hawlaha qabatay madaxweyne waxna waa ku dhiman yihiin waxna waa soo qabatay inta ku dhiman Allah ku fudeeyo waxaan leenahay hawlka madaare de hawsha awad ilaa inta muxuu ay sheegay ka gaarayso go'aankaaga iyo midnimada iyo wanaagga Soomaaliya la jeceshahay waxaan leenahay hawsha ka daayay howl u socon leeyahay waan idin hambalyeeynaa dhammaan meel kasta joogtaan Allah idin fududeeyo hawshiina haddee maamulada kale oo dhan Soomaaliya meel kasta joogaan hambaliyo idin leeyihiin saan jeclahay haddii la yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay sanadka dambe haddii la yiraahdo gabdhihiina quruxda badan oo aad u qurux badan ka soo badiyo meesha hala soo buuxsho raggii iyo waxaan filaynaa Hirshabeelle markii la waxaan mooday caawina magaalada dee leerkooda shirayna soo buuxinaysaan gabdhihi gabdho fiican baa oo wada qurux badan meesha wanaag baa ka muuqda laakiin waxa way sanadka dambe laga sii badiyo haddii la yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan idin jeclahay Hirshabeelle ha noolaato assalaamu calaykum waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay colonel maxamed abshir oo matalaya Puntland haddana waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha Bender Media UK أحمد سعيد هذه أسفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا السلامي مرتين الشرف تلاقوا وحفلة أنا كسوكيت قلن
mas-uuliyiinta oo magacyada aan lagu soo koobi karin gaar ahaan waxaan salaam u dirayaa hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka wasiirada oo dhan iyo reer hirshabeelle oo dhan waa mahadsantihiin waxaan idin rajeynayaa guul bashbash iyo barwaaqo iyo dadkaas oo qabanqaabiyey waxaan halkaan dacniyaad gaar ugu diriyaa xajimco oo mahadsan yahay asigan oo xabladan igu soo xajumay marka waxaan leenahay soomaaliya ha noolaato gaar ahaan soomaaliya ha wada noolaato madaxda kusoo galeen waa idin wada salaamay waxaa halkaa idinla fadhiya ambasadorkeena ifo iyo magacyada halkaa lagu soo koobigan dhammaan waa idin salaamay sida iyo nabadgelyadeeda aad iyo aad ayaa mahadsan tahay gudoomiye fara kama qodno liisku waa dheer yahay rag iyo dumarba haddana waxaan ku soo dhaweynayaa injineer maxamed jibriil wakiilka waqooyi bari UK بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عفوا رلا هذا سو دوين تمامك وقوي بري سو دوين تيسا انت سين كبدلو يسايلا فضلا سفع عن وصلو يا أبو ما سنتهين لما ببشرة قيمة عليها كفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كنت وحفلة حنبليو يبقادين أنسو تشيدين إنو دمانبا غير هيرشابيلي maamul goboleedka Soomaaliyeed ee ka mid ah federaalka Soomaaliya hambaliyo waxaan si gaar ah hambaliyada u gaarsiinaynaa mas'uuliyiinta ugu horeeyo madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe sidoo kale ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdikariim Luqmaan Xaaji iyo dhammaanba golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka xubnaha fulinta iyo mujtamaca bulshaweynta reer Hiiraan gude iyo dibadba gaar ahaan gabdhaha quruxda badan ee shacabka tumaya ee farxadda gaarka ah ay ka muuqato caawa nala qaybsanaya farxadda nala wadaagaya waxaan leeyahay hambalyo runtii waqti dheer oo aan kaga hadalno taariikh ama soo jireen ama waxqabad ma hayno waa xaflad soo dhaweyn waa hambalyo waa bogaadin waxaan leenahay maamulka hana qaado halka uu joogana ha ka sii labanlaabo heer fiican buu maraya meel fiican buu gaarsiiyey madaxweynaha iyo maamulkiisuba dhammaan dalka horumarkaa la gaadhay waxaan doonaynaa inuu ka sii hormaro oo uu gaadho meel maanta ummadda Soomaaliyeed ay garbaha iyo gacmaha isqabsato ku midowdo sidii dalkooda ay u hanan lahaayeen horumarkiisa iyo bulshadeeda horumarkeeda hadday noqon lahayd caafimaad waxbarasho iyo nololba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maamulka Hirshabeelle waxaan leenahay bulshada reer Hirshabeellena gudaha iyo dibadba hambalyo waa mahadsan tahay injineer maxamed jibriil aan u yeero cabdikariim maxamed gudoomiyaha Hirshabeelle UK السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام يا مدني مروي انت ماشي السجود تمد قبله ويلل تليارو كل واحد السلامي وحان هل كان كده كسر دوينة حفلة عنو السميني وحانو ملينا وحقا وير خلدمين دكي هوري Hirshabeelle waxaa la aasaasay
labadii 2014 marka meeshii ay dhaheen 9 sano maaha oo 11 sano maaragtay Hirshabeelle jirta waa qaangaar kartaayo qaangaarkiiba 4 sano ka dhiman haddii ilaahay yiraahdo marka waad ogtihiin taariikhda Hirshabeelle magaca ka garanaysaan waxaa ku astaan waxaa u ah oo calankan ku sawiran webigii halku ka soo galo Soomaaliya oo horey uga soo gudbo oo uu maro Soomaaliya inteeda kale gobolkan ama maxaa la yidhi dowlad goboleedkan la yiraahdo Hirshabeelle waad ogtihiin wuxuu ahaa dambiisha Soomaaliya khayraadkeeda meelaha ugu badan ee waddanka ama sokor ha noqoto ama dhar ha noqoto ama cunno ha noqoto wuxuu ahaa gobolkii khayraadka ama xataa laga quudin jiray caasimadda Soomaaliya dhibaatadan qabsatay dagaalkii sokeeye kadib ayaa ku habsatay waa magaaladii Soomaaliya waxaa ku taala magaaladii ugu horreysay ee tariin laga sameeyo oo tariin intuu ka baxo uu xamar tago taariikh dheer bay leedahay waxaana la yidhaahdaa waagii maxaa la jiray gobolladii uu Talyaaniga xoogga uga shaqeeyey ayay maaragtay Soomaaliya ka tirsan tahay alxamdulilah hadda dowladdaas dowlad goboleedka Hirshabeelle waa soo hana qaaday insha allahu burburkiina waa ka soo kaban doontaa khayraadkeediina mar dhow insha allahu si xoog leh horta waxaa ka horeysa nabaddaa ka horeysa markii aad xalli jiray aad horumar gaaraysa horumarka aasaaska horumarka waxaa weeye waa nabadii ayaa waxoogaa Soomaaliya oo dhan aad ogtihiin sida ay tahay mardow insha allahu khayraadkeedii badda batroolka iyo khayraadkii kaleba insha allahu waa la soo saari doonaa markii la soo saarana insha allahu intanadaan hadda meesha joogta ee aadka u jecel annagoo qurbo joogna weli waa u qarqaraynaa waddankanagii insha allahu Hirshabeelle waxay noqon doontaa meelaha maxaa la jiray ugu wanaagsan ee ugu khayraadka badan leh insha allahu inta nagala soo qayb gashay meeshan ee marti noo ah maxaa la jiray dowlad goboleedyada kale waxaan leeyahay waa mahadsantihiin Hirshabeelle waa dowladihiinii ka mid ah wayna idin soo dhaweynaysaa wayna idinku faraxsan tahay inaad nagala qayb qaadataan xafladan aad iyo aad kay u soo habeeyeen gaar ahaan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa gabdhaha iska xilsaaray noo soo qabanqaabiyey sida wanaagsan noogu soo qabanqaabiyey nagana batay haddaan rag nahay runtii waxaan u malaynaa raggii waxoogaa maanta birintay shaqo leeyihiino waa maaragtay waxoogaa waa naga baqan yihiin laakiin idinkaa maasha allahu ah idinkaa lafdhabartan idiinoo ah Soomaaliya haddayna gabdhaha ahaan lahayna waaba baabi'i lahayn aad iyo aad baa u mahadsantihiin martidana waa soo dhawaynayaa nin saaxiibkaya oo asagana meesha fadhiyaa wuxuu yidhi magaca maxaa la dhihi jiray koonfur galbeed hambalyo ku dar inkastoon Hirshabeelle ka imid laakiin baydhabana taariikh fara badan waxbarashadeedii iyo waxaasoo dhan halkaasaa ku soo qaatay ayadana fahanteeda waa jili karaa waxaan idin leenahay reer Hirshabeellow reer baydhabo waxay idin leeyihiin ama reer koonfur galbeed waxay idin leeyihiin hambalyo anoo magacooda ku hadlaya shariifka oo isoo wakiishay shariif ayaa isoo wakiishay wuxuu yidhi adiga haddana maxaa la jiray hambalyadii gaarsan aniga hambalyadii haddana isi siinaayo aad iyo aad baa maxaa la jiray u mahadsantihiin waa xaflad wanaagsan waxaan rajaynaynaa in aan midda kale annagoo intaa ka sii fiican aan isugu imaan doono waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم هذا يا مصطفى عبد الكريم
haddana aan u jaleeco dhinaca dumarka waxaa halkan iigu qoran gabdhaha magacyadooda kala ah ayaan tifow iyo amaal tifow oo ka socda African Engagement ku soo dhawaado ayaan tifow haddaad maqlayso iyo amaal هاي صعب السلام عليكم دمانتين وعيد السلامي لين الشباب from بلدوينة all the way to عدلة وسلامتي we are very proud Hirshabelle in Ahana. We live a lot in Akana, whether they are from Beledweyne and Ben or from Adelaide. Alhamdulillah and Salam Kedib, Waharna in Hambalieno, Anagan Asko Hambalieno, Sal Sana Gura, the Hirshabelle, mashallah. And we wanted to sheegno xataa waxyaabo yar aan qabano inaan meesha ka sheegno Mama Uday please stage ka imaaw Mama Uday Assalamu alaikum. Welcome. Thank you. Mama Uday Foundation. We are very proud to welcome Mama Uday and Ayantipo and myself. We have been in the community for a very long time. We are very proud to be standing here in front of you to celebrate 9 years of Hirshabelle. We would just like to say a few things that we're doing within the community. So we'll start with our community that's based here and then we'll talk about Mama Uday Foundation. Thank you. So sida ogtihiin community-ga wuxuu dhisan yahay hadda 11 years aan ka shaqeynona waxyaabihii hore aan u qaban jirnay for waalidiinta hadda waxaan ku soo darnay adeega caruurta baahiyaha gaarka qabo oo annaga dadkeena aan haysanin meel ay ku ciyaaraan ilmaha autism-ka qabo ilmaha Down syndrome-ka qabo any disability waalidka inaan garab istaagno oo aan caruurtii aan u hayno meel ay ku ciyaaraan ay ku nafisaan si aan loo judge gareynin meel aan la fiirinaynin oo aan la dhibaynin ayaan u haynaa thank you So we are very proud to be having an autism center based in Birmingham. We are very privileged to be offering this to our people. Our kids can have a space that is judgment-free. They'll be able to experience things that they would probably not experience anywhere else. They can have therapies and they can have one-to-one sessions. And we're based here in B10 Small Needs, so thank you so much. We would like to say something about Mama Uday Foundation. So service-kaas waxaa ku jiro therapy in loo sameeyo ilmaha hadalka ka soo daahay behavior therapy anger management therapistyaal iyo macallimiin waxaa ku jooga oo ku takhasusay halkaas haddaan uga baxo arrinta community-ga waxaan rabaa inaan si aad cod dheer iyo cod gaaban kulligiina idiin sheego gabadhan Mama Uday Foundation intaas ay u taagan tahay 7 days a week caruur dalkii joogto ayay halkan ka maamushaa agoon ramadaan ha ahaato ciid ha ahaato Hirshabelle ha ahaato dadkeena ha garab taagnaato every morning waxay usoo kacdaa inay annagana garab istaagto annagana we have to waxaa naga go-an Mama Uday Foundation daa'imna ag taagnaano forever marka waxaan rabnaa please idinka oo Mama Uday Foundation iyo annaka haddaa rabtiin inaad nala soo xiriirtiin nambaradana waa idin siinaynaa sadaqada Mama Uday Foundation inshallah salaamu calaykum welcome thank you waa tahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ayaan tifow iyo amaal iyo Mama Uday intaba haddana waxaan u yeerayaa saaxiibkay waa ninka ugu dheer magaalada Birmingham waa taqaanaa kuley magaciisana hadii sheegay ma rabo Abukate Kharey oo matalaya
maamulka galmudug saatiqaari ku soo dhawo qof dheer aa sugaysiin aan maleynaa بسم الله الرحمن الرحيم مركز كواد أنا قال مدق من مثلاي أنا وعلى الدنيا حسبية قرمتك قرنك صوماليا وجدت حسب الوحوية إنه دولة كستقى صوماليا إنه دفاعه إنه قلب استاغه إنه شعبنا الصوماليا la khaldayo inuu yiraahdo waxa la idin sheegayaa sax ma ah waxaan caawa u yimid halkaan gabadha ma isdhegaysana waxaan caawa u yimid martiqaad aan ka helnay haddaan xisbiga gurmadka qaranka hiil walaal ayaan u nimid caawa waxaan rabaa inaan idiin sheegno haddaan xisbiga gurmadka qaranka Soomaaliyeed gabdha ma ismaqlaynaa Soomaaliya way socotay Soomaaliya meeshii ugu fiicneed bay maraysaa maantay waxaan rabaa inaan idiin sheego reer Hirshabeello iyo shacbiga Soomaaliyeed oo dhegaysan doono aan ismaqalno waxaan idiin sheegayaa waxaa jiray markii dalkii burburay in la yiri dawladnimo hal la dhiso hal laga soo bilaabo MPyadii yaa soo dooranayay odayaal reer miyiga lacag la siinayay odayaashaas waxay soo dooranayeen xildhibaanada golaha dhexe ee qaranka maantay dawladda joogtaa waxay ilaahay khiraasi waxay ku guuleysatay oo processkeedii maanta lagu jiraa in shacbiga Soomaaliyeed uu soo doorto qofka uu matalayo qofka xildhibaanka golaha shacbiga ku matalayahay inuu soo shacbiga Soomaaliyeed ay soo doortaan heer deegaan heer gobol iyo heer golaha federaalka waxaan rabaa inaan idiin sheego in madaxweynaha Soomaaliya ay soo doortaan shacbiga Soomaaliyeed taasi waxay la tusaysaa in dalku hore u maray dawladnimadii inay shaqaysay nabadii inay soo noqotay dadka idin dhahaya maanta Soomaaliya nabad ma ahan Allah caafiyo dadka maanta dhahaya xamal cad dadka dhahaya xamar nabad ma ahan Allah caafiyo waxay noo sheegeen calooshooda xamar waa nabad Soomaaliya waa nabad labada haweenimo la socdaa saddex saac subaxnimo la socdaa qurbajoogi way tagtay caruurtoodii way geysteen dalkii baa la iskugu tagay ninkii kursi dadka u sharaxan kuraasta waxay xaq u leeyihiin inay musharax noqdaan laakiin musharax haddaad noqonayso waa xaq baad u leedahay laakiin ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada dheer soo martay inaan qalbigooda la dhaawicin in laga shaqeeyo xaq baad u leedahay haddaad xamil leedahay inaad musharax noqoto laakiin maanta maalin nooga fiican aan marayna haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay hadday dawladdeedii Soomaaliyeed bay intaa ku tillaabsatay inaan la taageero in loo duceeyo waxaan ku soo gabagabeynayaa inaad ila dhegaysataan heeskaan muxuu dhahay mataqaanaa gabdhaha yaryar oo noo joogo iyo dhammaan bulshaweynta reer Hiiraan
iyo hirshabeelle dhammaan ayaan salaamayaa hirka waxaan salaamayaa hirka ayaan salaamayaa caawa waxaan kaloo halkaan rabaa inaan uga faa'iidaysto soomaaliyay waxaa la rabaa isku duubnaana la rabaa dadka haddaysa isku duubnayn waxba ma qaban karaan halkan waxaa laga sheego haddaan aan maqlaayo gobollo weli waxaa u malaysaa inaan kala sii dhantaalanna waayo reer banaadirigi maxaa loo sheegi waayey reer banaadirigi maxaa loo sheegi waayey waa dad soomaaliyeed oo dego soomaaliya marka meel walboo joogno waa inaan kulli iswada xusnaa oo aan dhahnaa puntland muxuu ahaaye reer galmudug kulli inaan wada sheegno in la hilmaamo ma aha qoomiyad weyn oo fac weyn waaye reer banaadir waxaan rabaa caawa inaan uga faa'iidaysto anigoo ku hadlaayo magaca dowladda soomaaliyeed waxaan rabnaa in dowladda la taageero waxaan rabnaa inaan dhigno xaflad lagu taageerayo dowladda soomaaliyeed hadalka aan idin dhahayo waa inuu dhegihiinna aad furtiin oo aad dhegaysatiin halbowlaha waa gabdhaha odayaashana waa kuwa rakaabiyo gabdhow haddaanan isku tashanin oo aan dowladdeenna taageerin oo aan dowladdeenna garab gelin wax soconaayo ma jiraan waa og tihiin magaalada waxaa lagu maraa si ammaan ayaa lagu maraa wararka beenta ah oo meelaha la wareejinaayo oo la leeyahay dhuladaa la jejebiyey dadaa la jejebiyey war wax la jejebiye ma lehe bilicda magaalada la qurxina nin tuugana wuxuu ku gambanaa oo hoostiisa sii gelaya si uu madaxweynahayna oo u caabeeyo mid tuug ah oo iska dhigaya inuu dowladda ku jiro wuxuu raadinayaa dadka inuu ku diro madaxweynaha waayo wuxuu rabaa inuu kaga faa'iidaysto waxaan leenahay ma ogolin tuugada hoosta uga jirta dowladda ma ogolin annaga idhaa ayaan furannay wax walba ayaan fahmaynaa dadka jooga soomaaliya muqdisho gaar ahaan waxaan idin leeyahay dowladdiina taageera dowladdiina garab gala dowladdiina la socda waayo luuqyadii ay ku jireen kuwii idin baabi'inaayey oo idinku soo duulaayo ilmaha idinka laynaayey ragga idinka laynaayey waa kuwa la qaqabtay oo meel la saaray marka ma waxaad rabtiin inaad dib ugu noqotiin baahidii iyo dilkiinii la dilaayo ma inaad dib ugu noqotiin aad rabtiin ma saasaa danbadeen okay dowladda ma taageeraynaa adinkoo daacada caawa waa idin isgaraynaa ogaada taageerada dowladda waa inaad u soo istaagtiin dowlad la'aan dowlad xumaa dhaanto marka waxaan leenahay dowladdeenna horaa u socoto waa taageeraynaa garabkeennaa u galaynaa waa garab galaynaa gabdho taas baloobalana lagow manu raacsantiin waxaan rabnaa dowladdeenna hore ha u socoto cid walba oo ka hor timaadana waxaan leenahay waa jiiraynaa kuwa daba socda oo daba dhilifkaana waxaan leenahay hara dadka ha idin raaco marka waa mahadsantihiin dhammaan kulligiin waa mahadsantihiin aad ayaa u mahadsantihiin hadalladaas aan leeyahay ma rabo in laga jaro muxuu ahaay mar walba waxaan ka hadallo la jaro hadalkaas yaa la jiri sababta wuxuu u socdaa dowladda soomaaliyeed ayuu u socdaa waxaan diidaynaa dabadhilifka tuugga qaa'inka dalkeenna iyo dadkeenna boobaayo annaga ma ogolin ma yeelayno ma qaadanayno nin kasta oo qabiil ku socda asigay u taallaa annaga waxaa noo dan ah inaan dadkeenna iyo dalkeenna aan daafacno waxaan leeyahay raggiisa soo istaajiyey oo dhahayo annaga dowladdaa ka hornimo war waxaan arkaya islaan habaryara waxaan arkaya xasan sheekh habaryartiisa waxaan arkaya wiil yaryara arkaya oo adeero u yahay oo guryaha laga jejebiyo waa in looga jejebiyo dadkaa la simaa waayo dadka in la simaa la rabaa soomaalida waa inay sinaataan marka dowladda raaca dowladda indhaha u furta dadkiina taageera dalkiina taageera dowlad la'aan wax ka jira ma lahan marka dowladda taageerada dowladda diyaar muutihiin gabdho wiilasha diyaar muutihiin caawa waa cilaaminay taageerada dowladda yaa la kala maqnaan waa macsalaama
هذه هي وماسكاي مسكي حاج عمر وعن هدايا أولي قدومي حسن بصر مركل حسن بصر وحكاهم سنة هذا ما حدث موقته عن بيئتنا ثلاثة مواقف وأنا هذا الكي قلت بكتب له حكمي وباقوغا هاي دماتي حفلتين ستو سنة وفهم دوتا odayaasha waa iska fasixi doonaa dhalinyarada ayaa joogaya aniga odayaasha ku jiro ya helmaani hadal kula jiro samafale xasan basar darmiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكان عاوة بكرة موضوع وعلى سودي منه حفلتي الشرعية طبعا انت كسر الماسيين يبدأ واحد عشان هذا ان شاء الله الكريم هلكان عن شو استعاون عن بدل كلام قاطع كيسور عليهم وعن كل متقنا عن جعل هاي عارف نيجيشن راس نيجيشن ولا راس نيجيشن كبدو يبدي راس نيجيشن كده تاني هذا لو راس نيجيشن هذا لو نيجيشن بسم الله الرحمن الرحيم دينا هذا في رب الله سيدنا الله يربط أنا بدر وعاوة الله بترك عليه الشباب أمبلي علينا هاي يورو جوب علينا هاي وعن أجل كرسية مرتبطا أو كسر قيم كشيء أو رابط من بريستول أو كمية دنيا عسير أو كمية أمشي حسن السعودي أو سرقال صحيح نوري من أثر كيس حمد هذا بريستول جوبو هل كان أقول بهذه لنا ربي جعله كمان كسر قيم كلام أو هل كان يقول بدين وقالوا لي مثلا حفلة كلا كل عيدان مرجع وراء يا روح ويا هذا قصير بدينا لما تعاون مع بليو ودعونا نحن فريقك ودوبيها بعلمانك كل واحد اللي حريها الله سعده بعض الفريقات مغنى كل شيء وحوي وقتين قارنوا مغيا قارنوا وبرسيا كل واحد أنت مغيا الصوم إنتوا لما استرت الوعي لك هنا وين تقنا قتل اللي بتقنا شعور الله سمايو وين أرض بتقنا الله سمايو سولات اللي سمايو إن شاء الله بكري أنا بحوي تردارك هنا وأنا وكتير مرجع ورايا عليها داسكين شيء أنا عايز مقالة حسن بصري وعاكش اللي عايز مقالة وكل حين مثلا من هذا الأمر ومدنا عملتها سبورتك عن مثلا أنا آبيا مثلا عن كل هذا بل يرى الله عن سبحان الله سبحانه يا ريس وسمعنا أو هذا الأكاديمية حسن الصبح على حتى الغريب وعين أصلاً كلية مثلاً تاجرين أو مثلاً مادام كل كان مثلاً تجول أو نبض تيم كسر كله وإلى تاجرين إن شاء الله بقريب وعن ويا وقت البحوي ورسول يعني الجرادة أنا أقول بحوي هذا ما كان يقول إلا لو مثلاً يعني أفرا غير الله الجرادة ما علينا ولا يسوع هذا حفلة الوعي في عند الاستجابة قبل يوم إذا بس نجيسين يصير أو باشا يصير حبت هذا معه وأبوه غير من ذكر وباشا بيسمع هذه هذا يوم الثاني حسب مصر وحنوقف حقو أبويا ريا عثمان حاجي جمعالة بدونية عثمان حاجي جمعالة نبضونة سودان لمان انتو تزودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام لمانتيبا كسوق الرئاسة وكسوق الحفرة برود بضلة لمانتيبا وين السلام عليكم سلام السلام عليكم ورحمة الله. سومالي هنولاتو سومالي هنولاتو إرشميل هنولاتو هنجفتو هارومرتو أنا معاوة أنا وقاضي laba gobolka banaadir iyo galmudugba labadaas gobol anoo ka amaartay wakiil ka ah waxaan aad iyo aad u soo dhaweynay xafladan oo hirshabeelle iyo madaxdeeda
وهالكان ugu xusay aan ku soo dhaweynaa hadduu eebin marka waxaan leeyahay inta ka soo qayb gashay soo dhawaada waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa la soo gaaray xilliga u yeeraya caaqilkeena caaqil xaaji macow kusoo dhawow fadlan waxaan rabaa sacabka hal mar xaaji macow in loo sacbiyo فليتفضل حاج معو بسم الله الرحمن الرحيم مر وحي الآن اسمه غلنو السلام عليكم والله بغلا ما شاء الله مركو هذا وحان كم هذا علينا يا وحان كم هذا علينا يا حفلة قروح البدن اللي انت كسوق غير شيء هذي هذا هايين معمول قبوريات يدا سيدا قلمودك جوبالان بطلان كوفر قلبيت قبل كبنادر حفلة لغوما موسى سنة بورد السقالات هير شبال انت كسوق غير كشان ما علينا يا مركز لبعضنا وحان ربعنا ما عليو gabdhaha quruxda badan leh ee shaqada quruxda badan leh soo qabtay soo qabanqaabiyay noocyadooda kala duwan intaas kadib waxaan rabaa inaan halkaan uga yeero gabdhihii soo qabanqaabiyay xafladan quruxda badan leh guddigii qabanqaabada iyo guddigii la shaqaynayay oo ay ugu horeyso maamucuuday inaan intimaana rabaa حاوعلي أفوينة سوداو سيدو كلا وحن يلا نور عدو سيدو كلا وحن يلا ليلة ستي سيدو كلا وحن يلا فاطمة جمعالي سيدو كلا وحن يلا يا سكوري أيان آمنوا معلن آمنوا نعيم محمد ودمباشتي كل جنين كمالا واحدة لما أهان رنت لما قارين كرو بالشيء تمنى لما قارين كرو أيضا السيدة أي قبلها جالية UK أي ودبرحات ينقار أهان هذا قبلها جاليتها برمهان ودبرحات وحي قرب نقصي وحي والبط أو كمونو تقطع بناي حفلتها نروح لبنان له أي سوق بنابي وحي مذين اللغة قال عليه بلد أيميا بلد قركم ما يرى بلد قركم ما يرى لكن عوض ماشي وبيري روح سوق عمرو قبلها أي سوق بنابي قرش يكون بحيان وقت يكون بحيان عروتو هذا يجي مالين وعن لها قبلها بالمهام كر الله كديو كر الله كديو انت اسكتب حفلة اللي يسوي من ما انت معناها يروحوا هاي سنة دورة السجارات سيده هر الله شيء هيرشبيل لما قاري كانوا معمول جرواي بين مياه معمول جرواي أو كمية معمولات الفدرال كا قف يوي إذا هبل وحنا قالوا يس وحنا تسوم بالحفلة سوام مرتي قف كسر وحنا قبتي وحنا قبول قريين لكن أنا وحنا تاجرين معمول كهير شبيل أو كمية دولة الفدرال كا مسكور أحسن هاي هذه على ما تنتهي عمرك هجرو شغلة قبتنا نكمل ما علينا وأبو ما تنتهي جرو جوجا وحين تاسك بدنا وعن رأينا الماشى قبلها ما رتبعي عضوي مالين ما رتشكلس
dhalashada 5 Oktoobar la dhidbay calankii Hirshabeelle ku dhaadan jirnaa la gaaray dhawaqayda bal maqal durbaanka dhacaya balarad ledii maqlayba ku dheydhanaye dhammaan bulshadii Hirshabeelle taariikhda dhigeen bal arag hirka Hirshabeelle hirka Hirshabeelle hirka Hirshabeelle hirka Hirshabeelle wadaraari Hirshabeelle dhalashada 5 Oktoobar la dhidbay calankii Hirshabeelle ku dhaadan jirnaa la gaaray dhawaqayda bal maqal durbaanka dhacaya balarad ledii maqlayba ku dheydhanaye dhammaan bulshadii Hirshabeelle taariikhda dhigeen bal arag hirka Hirshabeelle hirka Hirshabeelle hirka Hirshabeelle hirka Hirshabeelle mutaan sugu ku dhaada jire haday dhantahay geeyo dhuke dhahigel jir ilaa mataban waradu maliyo labihiran dhanka qodqodiyo imaari baladweyn maxaas dhaantiyo ku dhala bula burde dhammaan calankii Hirshabeelle kalula dhaxaan hamiyey Hirshabeelle inaan dhiigiyo naftaba u hure jawiil dhilaniyo dhowrsan qoqori buuxa halganiyo ku dhata cali jalalaqsima dhigay rangaabo dalxiis dhammaanba tago Hirshabeelle ka dhidba calankii Hirshabeelle mutaan sugu ku dhaada jire haday dhantahay geeyo dhuke dhahigel jir ilaa mataban waradu maliyo labihiran dhanka qodqodiyo imaari baladweyn maxaas dhaantiyo ku dhala bula burde dhammaan calankii Hirshabeelle kalula dhaxaan hamiyey Hirshabeelle inaan dhiigiyo naftaba u hure jawiil dhilaniyo dhowrsan qoqori buuxa halganiyo ku dhata cali jalalaqsima dhigay rangaabo dalxiis dhammaanba tago Hirshabeelle ka dhidba calankii Hirshabeelle halyidhiirani halkuu ka dhashiyo dhulkii gobanimo dhaxalka u lahaa xeebsa dheeriyo ilaa cadaliyo dhigeeda warshiiq masjidka cali gaduud dhalalka nuur dugle dhinaca ceel baraaf dhimanka balcad iyo runirgood caway dhegtahe ku dheela shiribko ka dhidba calankii Hirshabeelle maantuu taluu ideeqin dhulko Hirshabeelle niman dadkaba dheerahay dhabtii jawhariyo ilaa mahday dhisan aadan yabal dholka ceel bacad dhammays wargaadhi raadhiceeliyo aanan ka dhaxayn maxaa saciide dhabacaadiyo ceel cali axmede ku dheela laba garas ku dheela ka dhidba calamadii Hirshabeelle halyidhiirani halkuu ka dhashiyo dhulkii gobanimo dhaxalka u lahaa xeebsa dheeriyo ilaa cadaliyo dhigeeda warshiiq masjidka cali gaduud dhalalka nuur dugle Let it get out of the house, I can't go, I can't